السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحو أهاوداد وحو سهدي فنان أبو شاعر القحداني وحو أهاوداد داعية دأدي سوحي أهيد كونتني 3 سنة وحونا أولا شي دالك السعود عربية تن إيه مددي وهوغانك هاي دحل سوهم سيدا موقطع إيه سيدة بمبا وحا كجري قيق السعود عربية اسبدل ديمين آدو بضان inta dawladdu ayna ku talaabsan dhaqamada xunxun waxa xabsiyada laga buuxiyay culimadii markay diideen inay u fadwoodaan sida ay xukuumaddu wax u rabto waxay culimadii noqdeen kuwa adkaysta oo lagu shaabadeeyay argagixiso iyo kuwa baqa oo u shaqeeya danaha dawladda waxa intaa xigay in la sameeyo maxfallo laga heeso kadibna la soo marti qaado fanaaniin la fasaxo tumashada shacabkana la caburiyo waxa intaa dheer in khudbadaha ka baxaya xarameynka ee caalamul islaam ay indhaha ku hayaan la ilaaliyo oo ay dawladdu ka ilaaliso dhammaan wixii iyada lidku ah waxa igu maqaala ahaa inaan maqlay Shariif Cabdinuur Allah u naxariistay muftigii Soomaaliyeed inuu yiri yaan lagu kadsoomin fadwooyinka qaar culimada reer Al Sacuud waxa ku furan cadaadis badan oo xagga dawladda ah aan ku soo noqdo Abu Shaacir al-Qaxdaani wuxuu isbuucii la soo dhaafay soo bandhigay hees قلبك وحا قلبي لغو بحيه تغلب كيسي يقدون كيس أيا بدن وحون يرى رسولك صلى الله عليه وسلم قلبك وحو كجرى بين أصابع الرحمن يغلب الله كيف يشاء قلبك وحو كجرى فراح إلهي سبحانه وتعالى وحون أقد قدنيا سأل الله سيدو طانو رسولك صلى الله عليه وسلم ندعالي سي وحي أهيد اللهم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك وحلوبها إن شاء الله إن دعاء آن بدنه waayo waqtigan hadda lagu jiray fitanta ayaa badan inxiraafka hadiiba culimadii ay sidan isku badbadelayaan maxaad u malaynaysaa miskiin yar oo aan diintiisa garanaynin bal qiyaas xaaladda iyo fitanta jirta awgeeda